السلام عليكم هاي ستي صناد ما ويجين waxa ay sameynayaan ha isku dayin inaad badbaadiso yes okay email isu diray idin aqrinaa insha Allah waxay ahayd qof aad u faraxsan oo xamaasad badan si ay u kabsato amaan darada iyada ah arana wax laga wada ba okay هذا waxay qof faraxsan ama farxad badan fadlan hada email soo diraysan Soomaaliga sax dadka daawan doona si u fahmaan okay idinku raali ah mahsanidin si bareer ah kaaga sheekaynayso noloshooda oo ay jecel yihiin inay calaamad u muujiyaan iyaga oo iska dhigaya in ay si dhab ah u dareenayaan dadka noloshooda iyo adiga isla markiiba waxa aad bilaabaysaa inaad dareento in waxa ay ka hadlayaan badankooda ku saleysan tahay ku wareegsan yihiin يعني انت بدن يعني waxay hadalka يعني in ay iska hadlayaan basically marhaba xiise kasta oo adiga ama dadka kale ku qabta waxa badana loo isticmaalaa in laga wala af Soomaali waa aqaan laakiin qoraalka si loo soo qoraa يعني wala waa garan Soomaali believe me on this one okay انت مري تفضل محل ترى هذا يا ماشي انجو لها isla markiiba waxa aad bilaabaysaa inaad dareento in ay wax ka hadlayaan badankoodu yani ay kale iska hadlayaan okay xiise kasta oo adiga ama dadka kala ku qaba waxa badana loo isticmaalay in lagu soo celiyo diirada in ay yani saarista yani in ay markii yani su'aalaadka markay sheekaysanayaan ama dadku soo imaadaan meel bulshada joogo in meeskale markii yani dadku qof yani maruu hadlaa moogtay so basically marka aan hadlo ama aad marka hadashid adoo hadalka dhamaysanin baan topic aniga ku soo celin basically yani waxaan rabaa attention inuu aniga saarnaado ma fahanto dadka narcissiska intooda badan way jecel yihiin in waxay jecel yihiin they love to talk يعني waxay jecel yihiin in ayagu iska waramaan in ayagu sheekayaan yani you enjoy hearing their talk يعني way jecel yihiin hadalkooda inay dhageystaan way ku raaxaystaan so maanta way hadli karaan adaa dhageysigeed ku daalisa kaste okay marxaba xukunka wada hadalka kala bar dhageysiga waxyaabaha aad sheegayso iyo sugitaanka fursad ay ku hadlaan waxay ku tusinaysaa bogaadin aad u daran oo aad aaminsan tahay iyaga oo u maleynaya in aad heshay qof si dhab ah ku jecel aragti aad u liidato oo xaqiiqada ah oo u aragto wax kasta oo ka soo horjeeda ama dhaleecaynaya yar weerar ama doqonnimo way yareynayaan arrinta waxayna ku sheegi doonaa inaad dareen badan tahay iyo inaad si xad dhaaf ah u xanaaqsan tahay raaligelin kasta oo ay ku siiyaan waxay noqon doontaa waxyaabo ka duwan arrinta asalka ah waxaad sameynaysaa wax kasta oo aad ku fikirayso inaad isku daydo oo aad xaliso dhibaatada sababtoo ah waxay u muuqataa in wax walba ay adiga khaladka yihiin yani adiga dushkaas yani wax walba ay hadlayaan adiga qaladka dusha laga saaray yani basically waxa uu dhahaa adiga dhibanaha adiga yani dhibka wada waa dad blame shifting Allah waxay ay ka hadlayaan oo ay ogyihiin inay ka gardaran yihiin baa waxay iska dhigayaan victim dhibana so waxa la blame shifting adiga marka yani aad dusha laga saaray marka adiga dhibanihi ahay oo lagu duleeyay lagu dhibay بعد مقرص رالي قلم بحنسة these people are very good at this يعني ده كان وحابي ويا قاعد سلو يرجم كان والوالدين تدل they manipulate their own parents والوالدين تدل يعني يسدوا تقيشان قرصة so قاعد بويا قاعد سلو يرجم كان أيكو كدولمي أو كدولي بهاتنا إسكت يعني دبنا مركز أنا قد بني هاي بهرالي قلنا أيك وعجائب والله way riixayaan ilaa ay ka helaan farx yani falcelin yani waxay dadka inta badan narcissiga waxay jecel yihiin si barto xayr inuu dhaafay meesha
waxay jecel yihiin yani inay dadka ka helaan reaction. So basically meelo aad ka diyaacsantahay ama waxyaala aad dhibsanaysa og yihiin bay riixayaan kasoo u yeelayaan. So waxaa gartama marka haddaad ignore garaysid meesha kuma istaagayaan, they will continue with push yani hadda adigu qof maanta tataawdo qofku kuu xanaaqaya moogta way ogyihiin marka inaad wixii dhibsanaysa, marka wuxuu sameynaya waxay tahay inay ka helaan reaction falcelin inaad la booqdo ku muranto canaanatid ama aad magarta caysid. hadhowtiin dadka hortooda waxaad ugu ekaanaysaa sidii qof aan lahayn dulqaad ama qof aanan garanayn si loo qofto ama qof aanan dabeecad lahayn. hadafkooda taasa marka inay dadka hortooda يعني kugu bahdilaan ama dadka hortooda ay yani dadka la intusaan inaad tahay qof aanan yani qof aanan samir lahayn. waxaa gartama they just wanna yani character assassination allah yani in yani magacay sharafta ikraamada aad ku leedahay aad ku dhex leedahay ummadda iyo asxaabta in basically dadkan kale ay ka kala dhicaan dadkan kale ay ka gada inaad tahay qof xun, laakiin qof xun ma tiid balse they are pushing you and they are fishing for reaction yani kasbay u sameynayaan kasbay kaaga xanaajinayaan ku talgal way waxaan si ay kuu yarayaan ama magaraysa magaxumo iyo sharaf darro ay kuu geliyaan. so waxaa gartama marka hadda wuxuu sheegay taas waa runtiiso way ku tahay yani okay isla marka aad isqabato ood muujiso xanaaqada ama xanaaqaaga waxay helayaan fursad ay ku noqdaan dhibana wayna qabsan doonaan si lama filaan ah waxa aad tahay qofka caytamaya qaylinaya oo ku hadlaya waxyaabo laga naxo. These people are very good at playing this game. Horaan u sheegay they play the victim ayagoo dhibana ahay ayagoo dadka dhibay dadka duleey dadka dhuunta u galay ama adiga isku day inay ku duleeyeen ayaa mar allaali markaad ku xanaaqdid hadda ogaawaya waqti badan baad u dhigaysay markaad ku xanaaqdid waxay noqonayaan yani dhibana oo saas inay la hadasho maahan inaa waxay u samayso maahan inaad saas magarta. so waxaa lahaa victim playing yani way ogyihiin waxay sameeyaan dadkan ha isku dayin inaad badbaadiso ha isku dayin inaad toosid ha isku dayin in ma garanaysaa dadka midda kale waxay tahay dadka narcissistka intooda badan they are takers way qaataan lacagtaada attentionkaada energygaada timekaada wax walba waqtigaada waxba kama baxa waqti kuma helayaan lacag kama helaysid naxariis galgacayl kama helaysid wax walba wanaagsan ayaga isla rabo wax walba wanaagsan ayaga isla jecel they just take and take waxba kama soo baxay waa dab weyn oo magarasay holcaya wixii meesha lagu shugo waxa kama soo noqonaya saasoo kale weyn wixii meeshaas ka gala hadii lacag ka gashay ka samar hadii waqti aad ku samaysid investment aad maalgashi ku samaysid ka samar. waxaa gartmaa sababta dadkan internally yani dad gudaha waxaa weeye aanan they are not satisfied ma aan dad ragsanba maaha kuma qanacsano noloshooda iyo meesha ay taagan yihiin iyo so waxaa gartmaa they cannot be alone ma ahan karaan yani cidlama keligood ma fadhin karaan 10 minutes 5 minutes ma fadhin karaan keligood hadda jir waxay jecel inay ku dhex jiraan bulshada ama dad inay ku dhex jiraan. so that gives them supply wax la yiraahdo attentionka waa dad aad u jecel attentionka sheekada muranka isqabsi waxaasay ku raaxaystaan. so waxaa gartmaa haddii ay keligood yihiin ama ay keligood meel fadhiyaan 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo waxay ku qasbanaanayaan inay muraayad hor istaagaan inay isfiiriyaan laaniyo maxaa iga qaldan si wax iga yihiin marka mar rabaa inay taas sameeyaan mar rabaa inay accountability noloshooda la xisaabtamaan. so waxaa gartama si marka taas aynan u dhicin si aynan yani aynan magarasa muraayad hor istaagin oo aynan isfiirino laaniyo maxaa iga qaldan maxaan u baahan inaan sameeyo waa inay noloshooda maaweeliyaan sida isas ku samayn karaan waxay tahay inay helaan supply qof ay isku maaweeliyaan adiga markaas ay kugu dayaan marka adiga iska dayaan marka adiga marka kugu dayaan ama isku ay ku yani inay inay ka dhigtaan wax ay isku maaweeliyaan ama ay ku ciyaaraan ama magarasa reality shows ama yani wax ay isku maandaala inay yani play these games si ay isku maaweeliyaan. way ogyihiin waxa ay sameynayaan ha isku dayin inaad badbaadisid ha isku dayin inaad toosid ha isku dayin inaad saxdid wax walba ay sameeyaan intooda badan way ogyihiin waxay inta badan sameeyaan midda dadkan they are very calculative wadad aad yani u maskax badan oo waxyaalaha inta badan ay sameeyaan waxyaalaha ay kasoo baarandegeen oo ay qorsheeyeen wax maahan oo maanta ku dhashay intooda badan waxay sameeyaan wax ay ka fikireen sababta camal qalamaha wax kala ma hayn. salute خير ان شاء الله. فضلا
email markaa soo diraysaan af soomaaliga si fiican usoo qoro okay dadaan daawan doona magaraysa dii kale waxaa leeyahay ninka odayga waa sidee soomaali ma yaqaano marka annaha ay ceebeenin waa si iftaa bal fadlan soomaali naga soo sax sababta ana dib ugu tulaa marka aqrinayn dadkii daawan doonana yani inay ku dhibaato total arka marka si dadka na daawanay u fahmaan anigana aan wixii magaraysa birtu ugu aslo marka hore idinka birtiga soo aslo baash qayr insha Allah haye bye